السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتوري ومحمد محمد كلوة بلداج محمد كلوة أبقى سلام يا دكتوري. لو سؤال يرير بان ربنا كويدية مد waxa weeye dawooyin badan baa la soo saaray wadamo badan soo saareen marka inta aad khibradaada iyo baaritaanka ku jirtay dawada ugu tayo badan ama effectigeedu ama waxyeeladeedu ugu yar tahay oo la ogaaday waa tuma dawooyinka la soo saaray. su'aasha labaad waxay noqonaysaa xanuunka waxa la yiri xanuunkii isagoo nooc kala ah hadda Hindiya iyo wadamada Afrika qayb kamid ah ku dhacaya oo nooc ka bedelan marka isla kii hore talaalkii hore miya loo qaadanayo mise isaguna talaal kale baa loo raadinayo oo talaalka hore waxba kama tarayo. labadaas su'aalood insha Allah iga soo jawaab. aad baan ku salaamay. Allah ku barakeeyo. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بلداج محيدين واكو سلامية وانا كاقاضي أذيقا إيو إقمدا إيو قرابدا إيو إهل كردمان وحايدين لا يهي سلام الله عليكم ما شاء شكتان الله إذن كنا بديالو سؤاله والله بيا هايين وحانا جعلها إنا أكلا قاضو لابا مركا هبدا وحان كجوابيا سؤاشا الضنبئ talaalka iyo isdalan rogiisa iyo doorsoomidiisa iyo qayrnaantiisa iyo dhibaatada uu yeelan karo iyo in talaalkan hadda yaala inuu wax ka qaban karo inaanu ka qaban karayn taasaan ka jawaabayaa. taas hadda runtii number 1 ah. tad dambe waxaan ka dhiganayaa jawaab ama kulan kale hadduu alla idmo maadaama aan doonayo inaan xadido waqtiga aan hadlayo maadaama dadku aysan jeclayn wax 10 daqiiqo ka badan in uu ay video soconaya ma ay jeclada kusaan arkay. beeldaaje sidaad sheegtay way jirtaa in maxaa la dhihi jiray talaalka hadda waddanka ka dhaqan galay ama caalamka dhan ka dhaqan galay dhammaantood waxaa loo sameeyey in ay cudurkan coronaviruska la yidhaahdo siiba midka wildiga ah ee asalka ah ee originalka ah ee ka yimid Wuhan intaan ognahay ee caalamka qabsaday 2020 midkaas ayaa laga aasaasay oo laga soo minguuriyey si uu difaac dadka ugu sameeyo. kaasina waa parenting waa saldhigii ama ciddii wax dhalaysa weeyaan. waa coronaviruska hadda caalamka qarqiyey ama caalamka waalay ee dhibaatada badan geystay midkaasuu ka bilowday then waxa loo yaqaano variant isdalan rog oo wax yar variation uu ku imaanayo ayaa meelo badan ka soo iftaxay. waxa ugu horeysay mid London laga helay oo UK variant loogu magac daray wadanku ma ahan laakiin markii la detect gareeyay la helay ayaa UK sidaas markaas number loo siiyay. mid baa South Africa laga helay isna South Africa loogu magac daray. mid baa Brazil laga helay Brazil baa loogu magac daray. mid baa Mareykan California laga helay oo California loogu magac daray. mid baa New York laga helay labo iyana sidaas loogu magac daray. iyo midka hadda ugu dhibka badnaa ee bilooyinka ugu dambeeyay waa midkan isna ka yimid maxaan ku raahdaa India oo isagana runtii double mutant waxa la yiraahdo laba meelood ayuu maxaan ku raahdaa uu isbedelku ka sameeyay. su'aashaadii weydiinaysaa waxay tahay talaalka hadda jira ee Soomaaliya yaale AstraZeneca la yiraahdo haddii aan qaato oo uu variantigaas yimaado wax ma ka qabanaya waa su'aashaada saldhigeeda. waxaan ku leeyahay ilaa hadda inta la og yahay yes wax waa ka qabanaya. badanaaba talaalada hadda jira caalamka oo Pfizer iyo Moderna iyo AstraZeneca iyo kuwa kaloo hadda anigu aan maqlay dhammaantood wax way ka qabanayaan. waxa la isku haystaa kaliya waxay tahay effectiveness-ka inta uu wax ka qaban karo maadaama boqolkiiba 89 loogu talagalay the wild duqii hore ama hooyadii hore ee coronaviruska dhashay loo sameeyey variationkan yimid isbedelkan ku yimid kuwan cusub ma laga yaabaa in uu effectiveness-ka sida uu wax u qaban lahaa ay ka yaraato ayaa la isku hayaa. marka su'aasha anaga inoo taala waxay tahay haddii midka wildiga uu boqolkiiba 100 protection aanu helayno waxaan ka soo qaadanaa bilqaaya waa wax dhici kara haddii aanu helayno oo midkan variantiga cusubna ay dhici karayso in boqolkiiba 80 iyo 90 ay maxaan ku raahdaa wax ka qabanayo ma qasaara mise waa faa'iido.
taasi waa kow adaan ku weydiinaya anigu waxaan aaminsanahay inay tahay faa'iido weyn oo bini'aadamka u soo hoyatay laba tallaaladuna waxa ay faa'iido kale u yihiin boqolkiiba boqol waxay dadka ka ilaalinayaan oo ilaahay idinkiisa in aanu qofka aanu u dhiman in qofka aanu dhibaato weyn u gaarin cusbitaal u gelin in qofka aanu maxaan ku rahay samabadiisa iyo oxygentiisa iyo dhibaatada badan xagga ka soo haleelaysa ay yaraato oo protection 100% waxa dhacaya ay noqdaan wax mild calaamado yar oo qufac iyo hergab sida caadiga ah markasta uu noogu dhaco hergabka oo kale inuu iska noqdo marka haddii talaal aad qaadatid oo corona uu kugu dhaco isaga dhanba uu noqdo wax sida hergabkii caadiga oo kale ku noqdo oo diif iyo qandhe iyo hindiso ay ku noqoto faa'iido ma tahay mise waa qasaaro waa faa'iido anay aragtayda marka waxa weeyaan waxaan kaloon ka digayaa marka because of sheekadaasi oo laga baqanayo in variantiga aan waxba ka tarayn in ay noqoto in talaalka hadda ku yaala ee diyaarka ku ah in loo qaadan kari waayo ayaan ka digayaa taasi laba isqaadan karta ma ahan loomana sababeyn karo talaalkan ma qaadanayo sababtoo ah ma garanayo coronavirus hadda socda waa isbedelayaa taa darteeda uma qaadan karo talaalka hadda ii yaalo wax loo go'aan loo gaari kara ma way qaldan tahay waxaa kaloo qaldan iyana dooska koowaad ma qaadanayo sababtoo ah dooska labaad ma garanayo waddanka inuu soo gaarayo inaan heli doono ma qaadanayo iyadana way qaldan tahay waa ra'yi qaldan waxaan kaloo iyana qaldanaan rabaa inaan kuu sheego magaciisi talaalkan ma qaadanayo sababtoo waxaa dhici karta in mustaqbalka in boosting la isiiyo oo aan shoot kale u baahdo sanada dambe oo uu noqdo wax joogto oo sanad kastaba sida fluga oo kale dhici karto inaa saa dartaan ka baqanayaa ama aanan rabin markaa sidaa darteed hadda maadaama weli aan la hubin waxaan ma qaadanayo taa iyana way qaldan tahay waxaan ku noqonayaa arrinta boostingka tallaale waxaa jira flu oo influenza cudur la yidhaahdo oo hergab khatar ah oo badanaaba yurubta iyo maraykanka aad ugu dhaca soomaaliyana waa jeclahay inuu yaalo laakiinse sida maraykanka u imid baa runtii sanad kasta marka la gaaro xilliga qaboobaha ah waa la iska tallaalaa sanadba sanad ka dambaysa waxaa loo sameeyaa isbeddel cusub iyo maxaan ku rahdaa strain cusub baa soo baxa oo ku shaqale markaasi tallaal iyo strain u gaara ayaa maxaan ku rahdaa tallaalkiisu socdaa marka coronaviruska inuu saa noqdona waa laga baqanaya oo uu noqdo mid nala dega oo isu kaayaba bedela oo habkaas oo kale u dhaqano waa laga baqanaya laakiinse weli lama gaarin jawaabtaasi waa ka soo hordhacaynaa marka calaa kulli xaal waxaan leeyahay waxa hadda inoo yaala aan la tacaalno si aan mustaqbalkana alla aan u dayno wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh